markana qoysas aad u fara badan oo hore iyagu uga barakacay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa bilaabay inay dib ugu noqdaan magaaladaasi kadib markii la sheegay in biyihii webiga Shabeelle maashiye marka waa biyihii webiga Shabeelle ee maashiye magaalada Beledweyne xaafado dhowr ku yaala ay dib markaa uga laabteen. Cabdilqaadir Cumar Nadaara wariyaha RTN ee magaaladaasi ayaa qadka ku jira hargal wanaagsan Nadaara. sidoo kale hargal wanaagsan Farxiye Cabdalla Muumin magaalada Beledweyne ayaan ku suganahay oo aan si toos ah ugu suganahay dhammaan dadka daawanaya telefishinka RTN waxaan leeyahay hargal wanaagsan magaalada Beledweyne wax kale oo dhibaato ka jira male marka laga soo tago bulshada inay helayaan farxad ku aadan biyarada uu sameeyay webiga Shabeelle kadib fatahaada aad u xoogan uu ku dhuftay magaalada Beledweyne bulshada qaarkood ayaad arkaysaa iyagoo dib ugu soo noqonaya gudaha magaalada kadib markii ay u barakaceen deegaanada ka baxsan magaalada tan iyadoona ay doonayaan in goobihii markii hore ay ka barakaceen inay dib ugu noqdaan webiga Shabeelle wuxuu sameeyay hoos u dhac u xoogan iyadoona markaa ay jirto hadal hayn kale oo ku saabsan biyaha webiga Shabeelle mar kale in fatahaad ay sameey karaan walow arrinkaasi xaqiiq uusan ahayn waxa ka hadlay dib u noqoshada webiga Shabeelle gudoomiyaha degmada Beledweyne Macallin Qallaafow oo isaga sheegay bulshada inay dib ugu soo noqonayaan gudaha magaalada isla markaasina ay doonayaan in ganacsiyadii kala duwanaa ay sii sameeyaan isagoona baaq u diray hay'adaha in ay ka qayb qaataan kaalmada ay u sameynayaan bulshada ku dhibaataysan magaalada Beledweyne waa biyihii faraha badan lahayo magaalada Beledweyne webiga Shabeelle ku masiibay maanta waxaad arkaysaan laamiga inuu biyaha ay ka baxeen guud ahaantiisa meelo yar oo biyaha ay gooyeen ma ahane waxaan leenahay bulshada waxa uu soo hoyatay yadadeelo kaleento oo tii hore ka bedelan hawadooda hadda waxay sheegaysaa in magaalada ku soo noqonayaan rajada ay leeyihiin in kastoo wali jidadka ay go'o yihiin oo ay gaadiid mari karin oo gaar dameer waxaan ay mari karin waayo jidadka waxa ka falmay waadiyaal waaweyn laamiga ma heli karaysid in meesha laami aha jirtay in kaleento waxaad moodaa laamiyaasha in aha jireen meelo jidad yar oo caadi laamiga waa laga qaaday dhagaxaantina waa laga baxiyay intaas oo dhan waxa uu sababay biyihii ilaahay ma hada ka gaarto biyihii aad u faraha badan laay waa baabeen waxa hadda aruuraayo inta badan goobihii ay ka soo baxeen markii hore ay biyahaas hadda ay ku baxayaan alxamdulillah waxaan leenahay ilaahay mahadis waxaan ka baryaynaa si ay biyaha u baxeen inay masiibada oo muxuu ahaay iyo dhibaatooyinka kale ay wataan biyaha duufaanta ilaahay noo mootay ayagana waxyaabaha deeqa soo gaareen hadda wali goobo badan ay gaareen ayna jirin bishii Ramadaan awgeed dadka muxsiniinta oo muxuu ahaay waxsada sadaqada ilaahay maalkiisa inay ka qayb qaataan dadka danyarta ah oo bishii Ramadaan ku soo aaday inay muxuu ahaay u sameeyaan afur waayo tacaawanu cala albirri wattaqwa wala tacaawanu cala al-ithmi wal udwan dadkan isku kaalmeeyaan alla ka cabsiga iyo nolosha bilaadanka waayo waqtigan waxay u baahan tahay ninka hantida leh waati ilaahay oo watazawadu fa inna khayra zadi taqwa wa taquna ya ulul albab xilligan waxay u baahan tahay dadka ilaahay wax sii in aakhire u zaad qaataan birri wixii cuna lahaayeen maanta ay baxsadaan waxaan leenahay dadka muxsiniinta dadka hantida ilaahay sii dadka reer Hiiraan meel kastoo ay joogaanba ha ka qayb qaataan afurka bisha Ramadaan dadka danyarta u soo kaalmeeyaan maanta waxaan leenahay kii dabaq lahaa ee kii buush ku jiraba biyihii waa sameen waxaan sameeynaynaa si siman ayaa loo gaarsiinay macaawanada sababtoo kii wax lahayn waxa soo garabday kii wax la'aan tahay wixii haysan afkay kula qaateen dhammaan waxaan leenahay meel kastoo Soomaali ay joogto dadka islaamka ay joogaan dadka muxsiniinta ay joogaan dadka qalbigooda jilcsan yahay ha ka qayb qaataan afurka dadka muxuu ahay sooman bisha Ramadaan si birri ay u qaataan zaadkoodii aakhira